بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan akhyaarta halkan joogto oo aan magacyadooda wada tirin karin laakiin kulligooda igala dhaxayso xiriir aad u soo jireena oo aad u tiro badan. waan idin salaamayaa dhammaantiin anoon magacyadiina gaargaar u kala sheegin si waqtigiina aan u ilaalino. laakiin dhammaantiin waad mudan tihiin ama qaar badan oo idin ka mid ah inaan magacyadiina sheego iyo waxaan isla marnay qaar badan oo idin ka mid ah. waxaan jeclahay inaan ka bilaabo maanta waa daahfur, waa soo dhoweyn, inaan soo dhoweyno fikirka saxda ah ee xilkasnimada ah ee ay sameeyeen saaxiibadeenna talo wadaag ay sameeyeen. dadka in hadal loo furo, wada hadlaan, wax la isdhaafsiisto, dadkana laga gudbiyo danaha yaryar iyo is-eed-eedka ee loo gudbiyo danaha qarannimada iyo ummadnimada ay leedahay. aad iyo aaday u sahlan tahay marka wax la isku qabto in si sahal ah la isu eedeeyo. xataa fircoon oo kaa taqaaneen ah nebigii ilaahay soo diray markuu la hadlu yiraa war dadka sidaan ka daa. fircoon dadkuu la hadlayaa wuxuu leeyahay war ninkani inuu diintiina bedeluu doonaya, wuxuu ka ilaalinayaa dadka inuu la hadlo. war ninkani dalka waa spoiler baan hadda naqaanaa soo maha. fircoon baa nebigii ku dhahaya spoiler baa ta uu ku dhahaya. laakiin haddii la wada hadlo war waxaa haysid keen oo la wada hadlay dadka nebigii bay raaceen iyo ambiyadii bay raaceen. bulshadeenna weliba dhibkii ina gaaray dartiis iyo burburkii inagu dhacay iyo kala shakigii wuxuu keenay inuu yar yahay dadka inay wada hadlaan, laga sheekeeyo. haddii la yidhaha dadka laga sheekeeyana victimka ugu weyn aniga inaan ahay baa laga yaabaa, oo qofka ugu weyn ee laga sheekeeyey inaan ahay baa laga yaabaa. waan ku faraxsanahay in la iga sheekeeyey. cid kastoo iga sheekaysayna ammaan badanay yay mudan tahay oo taasoo kale ah. haddii uun dadka qaar ay si wax u sheegayeen waxay un ka tarjumaysaa xumaan ay qabaan ma ahee bulshadeenna meeshii maraysay ka tarjumaysaa ee dadku dad fiican weeye. anigu waxaan ahay dadka aad u aaminsan dadka Soomaaliyeed dhibka gaaray marka loo fiiriyo inay dad aad u wanaagsan yihiin. tusaale yaraan idin siinayaa. hadda maalmahan waxaa igu badatay 27kii sane xumayd ayaa igu badatay. 27kaas sano waxaa ku jirto 7 sano oo ka mid ah oo in ka badan 20 doorasho dalkeenna ay ka dhacday, oo dadka 20kaas doorasho ku dhintay ay ka yar yihiin dadkii ku dhintay doorashadii 1969. miyaan darisnay taariikhda? waa laga yaabaa inaad dhahdeen 20ka doorasho xaggee ka dhacday. waad ogtihiin 20 doorasho yaa dhacday oo dalkan ka dhacday, maamul goboleedyadii ka dhacday, kuwa qaar laba doorashaa ka dhacday. mana arkin aniga weli meel inta la isku doortay labadii qof ee tartantay ee gacanta intay isku sayreen la yidhaahday aan kala safanno kama soo arag dalkeena. marka inaynu hore u sii soconno arrinta ku saabsan meeshan waxaa laga hadlay haddaayey marka qaar aniga dadka maqan inaan u hadlaan jeclahay. maamul goboleedyadu waxa ay ka mid yihiin dhismaha dalkay ka mid yihiin. maxaa yeelay dalkeennu markuu burburay wax adduunyadu ay ka tagtay buu noqday. adduunyadu waxay ka tagtay oo qarnigii 19aad go'aan laga gaaray no man's land wax la yidhaha inaysan jirin. meel aanan cid lagu ogeyn oo aan loo tiirnayn maamulkeeda inaanay adduunyadu ka jirin. dalkeennu wuxuu noqday dalka keliya ee qarnigii 20aad iyo qarnigii 21aad galay iyadoo in badan oo ka mid ah wax loo tiirinayo aysan jirin. laakiin maanta waxaanu joognaa igu bilaabatay maanta waxaanu joognaa in dalkeenna waa laga talaya. marka maamuladaas taliska dalka ayay ka mid yihiin. marka inaanu waxaas sidii wanaagsaneyd horey loogu socon lahay waa ku raacsanahay saaxiibkay diini iyo asxaabtii sheegtay dadka inaan la caburinno saasoo kaleeta. laakiin dee madaxweyne goboleedkuna waa inaan makhaayad looga qaadin xilka. yani waxaa la rabaa moogtahay ficilka iyo ficil celiskiis inaanu garan. waa qalad dadka in la caburiyo, waa khalad in xildhibaan nin nabad sugida uu dhaho ma hadli kartid. laakiin sidoo kale waa khalad intaan golaheenna ka tagno waxaana loo joogin inaynu samayno. waxaan rabaa inaan mar kale
dadka Soomaaliyeed aan u sheego waxa positive-ka wanaagsan ee fiican inaynu ka shaqeyno istuhunku meel uu nageynaya lama arko waxaan rabaa halkan inaan ku soo xusuusto nimaad wada taqaaniin aniguna markaad aragtaan aad asaga xusuusanaysaan waa saaxiibkay xasan sheekh madaxweynaheena wuxuu igu yidhi wax badan baan ka hadalay dadka Soomaaliyeed iyo ajnabiga iyo mushkiladiisa marka wuxuu yidhi niyahu talanku siinayaa qof Soomaaliyeed oo ajnabi ah hadaa aragto qof Soomaaliyeed oo kale uu ka cararay oo aamin waay waana meeshii ka soo bilaabatay inuu waa ogtiin inagoo dawlad leh oo xoog leh oo saas oo kala ah annagu haddaynu is aaminaa ajnabigu wax suuq uu yeelanayo lama arko madasha mar kale iyo mar saddexaad u hambaleynayaa waxaan u rajaynayaa guul iyo horumar inuu socdo waxaan ku faraxsanahay dad aad u badan oo anigu markaan dadka talada furta lagu fiiqaya ahaan jiray aad u jeclaan jiray mucaaradnimada iyo inay hadda leeyihiin mucaaradnimada hal iska joojiyo wax wanaagsanna ma aha aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaan jeclahay marka inaan ku soo khatimo kuwa naftooda markay hadalkaas u fiican dhahaan aan u sacbino laakiin waxay leeyihiin qoladii hore fashilantay marka waxay rabaan in mucaaradnimadana la dhaafo kuwii hore tagayna xataa la sii mucaarado aad iyo aad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.